maanta aan ku bilownay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisu uu haysto 5,000 oo gantaalo oo Ruushka laga keenay oo nooca difaaca cirka ah si uu uga hortago weerarada military ee Mareykanka oo ciidamo ku daabulay badda Caribbean-ka. Maduro oo hadalkani ka jeedinaya xaflad ay goobjoog ka ahaayeen saraakiisha ugu sarreysa ciidamada dalka Venezuela ayaa waxa uu sheegay in gantaalada EGLS kuwa masaafada gaaban loo qeybiyay goobaha difaaca cirka ee muhiimka ah si loo adkeeyo ammaanka dalka Venezuela kadib markii Mareykanku weeraro dhowr ah uu ku qaaday xeebaha Venezuela bishii September isaga oo sheegay in uu burburinayo doonyo lagu tuhunsan yahay in ay daroogo ay sidaan. Maduro waxa uu yidhi cid kasta oo dunida ah waa ay ogtahay awoodda gantaalada EGLS. Venezuela waxa ay haysataa ugu yaraan 5,000 oo ka mid ah gantaaladan oo loogu talagalay in lagu soo rido diyaaradaha duulimaadka hoose ku socda ayaa lagu tijaabiyay dhoolatus ciidamada oo uu Maduro ku amray ciidamada kadib markii dhaqdhaqaaqyo military Mareykanku uu sameeyay kuwaasi oo caraq ka dhaliyay dhinaca Venezuela waxaana la sheegay in inta badan madaxda Latin America ay arintaasi ka soo horjeesteen. Washington ayaa waxa ay sheegtay in diyaarado iyo maraakiib dagaal oo casri ah la geeyay badda Caribbean-ka si ay uga hortagaan tahriibinta daroogada iyaga oo sheegay in la burburiyay ugu yaraan 8 doon oo lagu tuhunsanaa in ay daroogo ay ka soo qaadeen Venezuela. Xukuumadda Caracas waxa ay tallaabadaasi ku tilmaantay tallaabo amaba tabar lagu diyaar garoobayo howlgal lagu ridayo Maduro oo Mareykanku uu ku eedeeyo in uu madax u ka yahay shabakad darooga oo caalami ah. Ciidamada Mareykanka ayaa tan iyo xagaagii sanadkan ku ururay badda Caribbean-ka ciidamo badan halkaasi geeyay taasi oo dhalisay mala awaal ah in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu qorsheynayo inuu xukunka ka tuuro Maduro oo wajahaya dacwado daroogo iyo argagixiso oo gudaha Mareykanka. markaan xagga Suudaan haddii aynu eegno garoonka diyaaradaha magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa maanta dib u shaqo bilaabay kadib in ka badan 2 sano oo u xirnaa sabab la xiriira dagaalka dalkaasi ka socda. Inkasta oo diyaaradaha maanta ay ku soo degeen garoonka haddana maleeshiyadka RSF ayaa weeraro drones ku qaaday halkaasi sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan. weerarkan saaka ayaa ahaa kii saddexaad oo xiriir ah oo 3 maalmood ee la soo dhaafay ciidanka gurmadka degdega ah ay ku qaadeen garoonka caalamiga ah ee magaalada Khartoum iyada oo lidka diyaaradaha ciidamada qalabka sida ee Suudaan si guul leh ay kaga hortageen. ila wareedyo arrimahan u dhuun duleela ayaa sheegay in aysan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray ciidamada ama shaqaalaha garoonka inkastoo weerarku uu bartilmaameedsaday qaybta waardiyayaasha amniga ee garoonka iyadoo mas'uuliyiinta ammaanka ay sheegeen in weerarka RSF aysan carqaladeyn doonin howlaha duulimaadyada maadaama nidaamka difaaca cirka uu si hufan u shaqeynayo. goobjoogayaal ku sugan Khartoum ayaa soo sheegay waa barigii hore inay maqleen qaraxyo iyo dhawaaqyo culus oo hubka lidka diyaaradaha ah kadib markii arkeen diyaarado aan duuliyaal lahayn oo dul maraya koonfurta caasimadda. tani waxa ay daba socotay weerar kale oo RSF ay ku qaaday Arbacadii garoonka iyagoo adeegsanaya 6 diyaaradood oo drone ah kuwaas oo ciidamada cirka Suudaan ay ku guuleysteen inay soo ridaan. weerarkan ayaa sidoo kale ku soo aaday maalmo kadib markii hogaamiyaha RSF Maxamed Hamdan Dagalo Hamadi uu khudbad u jeediyay ku sheegay in ciidamadiisu ay bartilmaameedsan doonaan garoon kasta oo ay ka kacaan diyaaradaha ciidamada cirka ee Suudaan isaga oo ku tilmaamay inay yihiin bartilmaameedyo sharci ah. duqeymahan ayaa dhacay xilli shirkadda garoomada Suudaan ay ku dhawaaqday in dib loo furay garoonka caalamiga ah ee magaalada Khartoum xilli uu xirnaa tan iyo markii uu dhacay dagaalka u dhaxeeya ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo kooxda RSF bishii Abriil 2023. Arbacadii maamulka shirkadda Khartoum International Airport ayaa sheegtay in diyaarad rakaab aheyd oo ay leedahay shirkadda Bird Air ay si rasmi ah u soo caga dhigatay garoonka taasi oo ahayd duulimaadkii ugu horeeyay ee rayid muddo ka badan 2 sano iyo bar. bayaanka shirkaddu waxa uu sheegay in dhacdadani ay tallaabo muhiim u tahay soo kabashada qaybta duulista hawada ee dalka iyo dib u soo celinta dhaqdhaqaaqa hawada ee caasimadda. garoonka ayaa dib loo furay 921 maalmood kadib markii uu xirmay 15 Abriil 2023 saacado kadib markii hay'adda duulista rayidku ay ku dhawaaqday in dib loo howlgeliyo garoonka ayaa Arbacadii waxa weerar ku qaaday diyaarado drone ah taasi oo cabsi ku abuurtay in howlaha dib loo joojiyo.